ولكن عبد الحكيم عثمان نور أكمل الشيخ الصومالي AKA حرت الشيخ مينيابوليس مينيسوتا كل جين وحنا دين الله هاي الله هيد محفظه ما أنت ما داعي هلكي أيوب مريا كيسكي دتكي داعي لعدكي راشيك عرورتا قبل كمينيسوتا سيدا الله سعوتا أسبوع هوري واحد محكمة لك يعني ويل صوماليات ومجلس اللي يرهدوه عبد القادر علي مثلا عبد القادر علي وانك اسال اركتان ما انت مدح الدوطي انا دبا سودا ايان ادين سو دين دونا ان شاء الله عبد القادر علي waxay organization wada lahaayeen nin la yiraahdo isagana Yusuf Ali laakiin Maxamed Saciid la yiraahdo caawa wax la isku haraya ma jirto sababtoo ah dadkan dad waxay ahaayeen حرت الشيخ insurance كذا كبحث إنك عاوة لطول مرايا إسكاسم هذا المركز بعشق قادر نسي هو كبحث أنا إذا خدك مركز عاوة لا إذا كنت مرايا أوكي يسوق اوكي عبد القادر علي waxay wada lahaayeen organization magaciisa la yiraahdo SS waxay la shaqaysanayeen nin Ethiopian Ormo ah oo la yiraahdo madrasa مدرسة وحولها يود انفانتر لاب وحلا يراهد او ميل عنتدا ليرا والغو كريا اوكي اورغانيزيشنكي مدرسة ايا waxay dhahan jikada ayaanu ka kiraysanana oo cuntada ayaad noo sameynaysaa cuntadaasaan halkaas keenanaa waxay madrasa soo marsiiyeen jikadiisii oo youth infantry lab iyaguna SS bay ahaayeen waxay soo marsiiyeen lacag gaaraysa $3.6 million waa 7 months gudahood madrasa lacagtii boqolkiiba 90 wuxuu dib ugu celiyay iyaguna waxay dhaheen madrasan ka soo gadan madrasa waxa uu qaatay boqolkiiba 90 buu celiyay 10 buu qaatay yani madrasa wuxuu ahaa sarifle caalami oo sarifle Ethiopian okay Abdul Ali personal accountkiisa markay xaaladii xumaatay madrasa wuu soo istaagay waxa uu madrasa sheegay wiigii hore oo Ethiopian waxa uu yiri lacagtaas 300 kun waa laga helay saddexna uu cunay baan u maleynaya 600 kun wuxuu yiri waxaan sitaa 2 degree lacagtaasna waxaan aad uga xumahay in anigoo 2 degree sita lacag intaas leegna meeshaas ay martay oo aan dhacnay inaanan hal ilma aanan siinin biicad oo madow hal xabo biicad madrasa waan Ethiopiana isagoo ooyaya oo maxkamadii taagan ayuu wuxuu yiri hal ilma ma naasinin biicad lacagtiina boqolkiiba 90 dib waxa ugu celiyay iyaga organizationkoodu wuxuu ahaa SS waxa ay dhaheen waxaan cuntada gelinana aan ka qaadanana jikada madrasa ayay ku soo shubteen lacagta hadalka fahma madrasa sarifle caalami buu boqolkiiba 90 iyagiibu dib ugu celiyay isagii bay martay iyagiibu dib ugu celiyay intiisii buu goos
kabacdi madrasa waxa uu sheegay inuu 2 digrii haysto waxaan dhacayna uu ka xun yahay aadna uga xun yahay isagoo 2 digrii haysta in lacag intaas leeg intay dhaceen aan hal xabo oo biyo cad ah ilma yar rasiin okay Abdul Ali يا يوسف علي واسكولاسنا لكن ولبا قبيله كلا دول عبدول وول شيخاله عبد القادر علي والشيخال يوسف علي ولا ودا يقانا اسغنا ومحمد سعيد ولا يرى وويل عثمان محموده عبدول يا يوسف waxay ahaayeen dad bisan xista autism oo maalin dhow laga xiray bay wada ahaayeen dad waxay ahaayeen saa isku ah oo long time friend aha oo waxna wada cuni jiray bisansiya badanna ay ka dhaxeeyeen maxamed saciid waxa uu ahaa wiilkii Ismaan Maxamuud ee lahaa shiishadii la oran jiray 280 markii dambana daycare home care autism isaga iyo Abdul way isku marmeen oo yaani rag saas ah ayay isku noqdeen hatta waxay isla aadeen Turkiga waxay isku soo sameeyeen dib habayn oo xagga timaha iyo waxaas iyo caloolaha iyo adigu dib habayn dayactir bay xitaa Turkiga u wada aadeen يعني ركسا اسكو من ما بهاي لكن ما انت ما حد عي today ما حد عي يا ويجي هور بشي هور عبد القادر علي وعلى كان محكمة ده waxa uu yiri galti meeyhi markii uu yiri galti meeyhi waxana ma aanan sameeynin waxa la soo wada hor dhigay dhamaan waxyaalihii dhacay oo dhan oo cadayna Abdul waa isbedelay weegan aan hadda ku jirno maalintii Monday Tuesday ahayd waxa uu Abdul sheegay inuu galti yahay dambigiisana uu qaadanayo maanta oo Arbaca ah Abdul waxay ka dhacday dacwadiisu waxay ka dhacday Symbol weegan aan ku jirno horaantiisii maanta oo Arbaca ah 4 o'clock ayaa waxa la isku yimi Federal County Minneapolis Abdul waa soo istaagay sheekadii waxay noqotay labadii nin ويجي هرانا دولت واسوق على حرتودي اوتيزمك اي خدان عبدول محمد سعيد لبنينو سا اسكو اي اهاي wax wada cun badan laha xataa waaniga idin dhahay dayactir bay labadooduba mar u tageen wadanka Turkiga wadayactir waalan baa la isku soo sameeyay yaani magaaladu waa u shidnayd oo waxaan yaani dadka waxaan dhacayo dhan bay ahaayeen dad walaalan wahay laakiin markii xaaladdu xumaatay Abdul hal mar kaliya ayuu saa isku bedelay waxa uu la tashaday ehelkiisii waxa uu yiri xaaladdu maanta waxay maraysaa saaxiib mari mayse hooyana mari mayse aabana mari mayse maanta xaaladdu waxay maraysaa nin walba nafta day maraysaa see markaa maxaan sameeyaa waxa la wixii aad qabto sheego xabsi 10 sano ka biximida baadama oo madrasa oo ay wax marsadeen oo yiri waxba ma naan bixin wax meesha yaala zero baad organization zero buu بعدما عبدول هيك على فريسه وحا ليدي بعدما بحالب صايد ادير ويل كان عثمان محمود وحبكا ما قاليني ادير قعلي وحا قيرو رنتر شيغو سومالي waxa rabaa caaw inaad 10 badan aad halkan ka qaadataan oo duruus idin noqdo labadaas wiil yaani say isku haayeen magaalada waawi qof ay maanta ka qarsooneed ma jirto Abdul waa soo istaagay ويجان إنه كنت رهانتي سي أي دم بيجي قرت ما أنت الله كان ما أنت دعك عبد الواحد ويري واحد أكون كي جمرة بيري بقول يلا بعتنكم $1 كمرايكن كان بقول يلا بعتنكم أيا أكون كي جمرة حاكم كشرفت له وان غير الدم بيجي أنسانية organization kii la oran jiray buu SS Yusuf Ali oo iskulaas nimihi waa Maxamed Saciid oo Usmaan Maxamuud ay wada lahaayeen isaga ku kooban tahay buu wuxuu dhacay waxaan bixin jirnayna waa sidii madrasa sheegay ma jirto Abdul waxa uu qirtay dambigiisii waxa uu yiri sorry waxaan galay mistake lawyerkiisii baa ala lawyerkiisii wuxuu yiri waa first time oo Abdul sameeyay buu wax mistake wuuna qirtay wuxuu dhahay waxaan ahay nin hard working oo aad iyo aad u shaqo badan oo family leh حاكمك شرفت له وحن كاعد سنة يا بعد ما أنا هاي نين وحبرتي
oo family ah markii ugu horeysan mistake kalena ay tahay waxa aan akoonkayga marana ay yihiin $120,000 xaakimka sharafta lahow looyarkiisiba hadlaya waxaan kaa codsanayaa in aad u naxariisatid waa aabe waa hardworking waa nin mutacalina khaladkana ma u gelina ninkaasaa wax dhacay saaxiibkiisii ay 12 sano iyo ka badan soo wada jabeen xitaa turki isla aadeeno ay dayactirka u tageen dib habaynta u tageen abgareed isku soo sameeyay timaha noqoto ama hoos noqoto ama calool ha noqoto ama yani wax kale ha noqoto ama waji ha noqoto in waxa soo dhanba isagu xadayba wiilkii Cismaan Maxamuud baba saarayo marka u naxariiso xaakimkii waa aqbal wuxuu yiri galti maana waxa lagu xukumay one county ayaa lagu xukumay cadadkiisii wixii lagu xukumayay ma dhicin oo yani waxa la yiri yani ma jirto yani xukunka maalinta la soo wada xareynaya ayaa qof walba loo sheegaya oo dhahaya intaas iyo intaas ayaa lagu xukumay one county baa lagu xukumay money wire iyo money fraud inuu sameeyay Masar Abdul markuu maxkamadda ka soo baxayay waxaan ka mid ahaa dadkii saxaafadda ahaa ee meesha taagnaa aqoon fiicanna waan u lahaa Abdul ila wadaag soga وكاف عبد القادر علي وضرب الصعدة صباح يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسوغنا هاي فدرال كورتي نيوز كده وتاجين حال السجى عبد القادر علي سومالي فرتنجرة oo isagu kamid ahaa dadkii lacay raashikii lacagta caruurta marka insha Allah dhiil ayuu qaatay maanta saafadii dhan waa taagan yihiin aniguna bartaan ayaa taaganahay waa kuwa newski oo dhan horaan taaganahay marka insha Allah wuxuu waray ka soo kordha Somali community ana idin la wadaagi doon haddii Ilaahay yiraahdo saxaafadii oo dhan waa wada aragtaan bartaasi taagan yihiin aniguna waa kamid ahay saxaafadii ugu afka dheereeyay Soomaaliyeed baan ahay marka insha Allah hadda la soo dareerayaa de wixii waray ka soo baxay waa idin la wadaagi doon haddii Ilaahay yiraahdo waa taas xaalad soo baxay halka ay la socdo maanta waa ka soo baxay وأقصوعي فيسبوك لايف بان كجرا وأقصوعي سوق كسوق Somali community ana idin la wadaagi doon haddii Ilaahay yiraahdo saxaafadii oo dhan waa wada aragtaan bartaasi taagan yihiin aniguna waa kamid ahay saxaafadii ugu afka dheereeyay Soomaaliyeed baan ahay marka insha Allah hadda la soo dareerayaa de wixii waray ka soo baxay waa idin la wadaagi doon haddii Ilaahay yiraahdo waa taas xaalad halka ay la socdo maanta waa ka soo baxay Qaadir soo baxay waa kaas عبد القادر علي صومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسوغنا هاي فدرال كورتي سعر عبد Can you open? واو عرري مستر عبدول صحافة ضمبا كنت وكاسة صومالي عبد القادر علي صومالي ويان وكاس عبد القادر علي وصومالي وديدن yahay in lala hadlo
وسيس على وجهدان زين عبدول سؤال مكو يديك لا صاحب سؤال مكو سجى قف باي صوت قراعي سجى اوكي sida aa arkayseen maxkamadaas waxa ay dhacday maanta indhihiinana waa ku wada daawanayseen maanta ayay dhacday maxkamaddu sida indhihiina ku wada hayseen ninka sii cararayana wuxuu ahaa cabdulqaadir cali cabdul maanta waxa uu ku wada moosay dambigii oo dhan saaxiibkiis maxamed siciid oo loo yaqaano yuusuf cali iskulaas neemihiin oo ay wada lahaayeen autism meel autismka oo maalintii dhaweed laga xiray daykeero iyo homkeero ay wada lahaayeen shiisho aad u weynna ay wada lahaayeen oo la oran jiray 280ga lacag aad u badanna ay sameeyeen dadkana ayna aqoonba iyagoo xitaa ay baxeen oo turkiga iyo meelahaas ay u doonteen dib u habayn xagga madaxa xagga caloosha iyo dhinac walba lagu soo wada sameeyey marka xaaladii maanta halkaas ayay maraysaa waa labadii nin laysma odhanin maanta qofna niyadda ma gashanin maanta waxay noqon doontaa maalin ay cabduul iyo isku markhaati furaan iyo maxamed siciid oo cabduul uu maxamed siciid ku moosayo marna maanta laysma odhanin marna marka mar kale ayaan rabaa inaad idinku celiyo inaad daawataan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسوغنا هاي فدرال كورتي نيوز كده وتاجين حال السوق عبد القادر علي سومالي فرتن جرأة oo isagu kamid ahaa dadkii dhacay raashikii lacagta caruurta marka insha Allah dhiil ayuu qaatay maanta saxaafadii dhan waa taagan yihiin aniguna bartaan ayaa taaganahay waa kuwa newski oo dhan horaan taaganahay marka insha Allah wixii waray ka soo kordha Somali community ana idinla wadaagi doon haddii Ilaahay yiraahdo saxaafadii dhan waa wada aragtaan bartaasay taagan yihiin aniguna waa kamid ahay saxaafadii ugu afka dheereeyay Soomaaliyeed baan ahay marka insha Allah hadda la soo dareerayaa wixii waray ka soo baxay waa idinla wadaagi doon haddii Ilaahay yiraahdo waa saas xaalad halka ay gala socdo maanta waa ka soo baxay Qaadir soo baxay وكاس عبد القادر علي صومالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسوغنا هاي فدرال كورتي. Can you open? واو عرري مستر عبدول صحافة ضمن كده وكاسة وكاسة صومالي عبد القادر علي صومالي ويان
halkaas cabdul cabdulqaadir cali oo Soomaali ah waa diidan yahay in lala hadlo oo sii socda waa ujeedaan Mr. Abdul su'aal ma ku weydiin karaa saaxib su'aal ma ku كاو سي عرر يا عبد الغفار كان او بحي ان شاء الله وحي لو دميان سو غان دونا هدو الهي يراهدو وawada arkaseen marka keeskaas maanta intaas kula maaday Abdul Qadir Ali Abdurrahman waxa uu maanta ku moosay saaxiibkiis Maxamed Saciid oo loo yaqaan Yusuf Ali organization ay wada lahaayeen $3.6 million ayay qaateen Abdul wuxuu hadal maanta ku gabagabeeyay xaakimka sharafta lahow waxa akoonkayga soo maray $120,000 waxaan ahay aabe mistake aan ugu horeeyaan sameeyay weeyaan mistake dambana ma sameynayo xaakimka sharafta lahow waxaan ka codsanay in ay naxariisatid laakiin talaabo sharciya aad ka qaadid buu yiri Yusuf Ali waa Yusuf Ali shalay dib habaynta xitaa isla aadan dayactirka Turkiga u tageen autism ka wada lahaayeen shiishada wada lahaayeen wax wada dhacayeen halkaas maanta marasa Soomaaliyeed shalay markii wax la wada kharbudayay walaala wada ahaydeen